waxaan qasooyinku waa fara badan yihiin xusuustay oo qiso inaan sheego ay lagama maarmaan tahay fi hada albaab nin sheekho mashaa'ikhda reer madiina ah oo haddaba nool oo la yidhi waa nin caalim madiino kutubta ka aqriya oo aan filayna nin ahlu khayr inuu waxaa lagu leeyahay ilaa yowmina haada mindha kontonkii waa u dhaafay weli ma uusan guursanin wuxuu u guursan waayey sidii dadkii waraystay wuxuu ka baqayaa qofka uu guursado inay hooyadii isku dhacdo isaguna meelaan hooyadii agteeda ahayd ma seexdo yani ma doonayo meesha hooyadiis buu u khidmeeyaayo qolkeeda qol aan ahayn inuu seexdo mar rabo hadduu guursado marka xaq baa lagu yeelay waa inuu islaamtii qol kale la tagaa waa in arrimahaas marka ma yeelin baa leeyahay horta taas anigu kama maqal laakiin qisada aan maqlaan idin sheego cajaa'ib kale qisada waxaa ii sheegay nin soomaali ah oo asagu yani dee sacuudiga waad garanaysaan kafiil ka yahay kafiil ma taqaanaa waa wax ilaah idinka xoreeyay idinka waxa waaye nin baa adiga mas-uul kaa ah inuu nin mas-uul kaa noqdo ayaad ku joogaysaa marka ninka kan nin sheekha oo soomaali ah iiga sheekayna wuxuu yidhi sheekhan waxaan isku aragnay meel jidda ah isagu reer madiina wuxuu yidhi buu yidhi sheekho waxaan rabaa yani nin darawala oo aad baan mashquul u ahay hooyadeed iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo haddana ahla diina oo weliba usra leh baan doonaya sheekhana waan aqaanaa buu yidhi markuu saas yidhi anaa idhi buu yidhi anaaba diyaara waayo marka anu magaalo kalaan joogaa buu oo aad uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bishay idhi buu yidhi imow madiina isugu keen almuhim tigirkii iyo wixii iyo lacagtii wixii buu isiiyey buu halkaa inaan isugu tagno marka waxaan u imid weyn inaan markaa aniga kafaaladii sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo madiina iyo xaramkii iyo khayrkii inaan ka faa'iidaysto waan imid xaramkii baan sheekhi baan la galo sheekhi suu isii waday meel hotel uu dejiyey buu yidhi lacag iga bixiyey uu yidhi intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaaban halkaa ku jiro 4 bilood ilama hadlin maalin kasta sheekha waa sharxana waa yarkaa waa salaama oo iska tagaa oo iska ilama hadlin 4 bilood oo hotelkii lacagta bixinaya kadib ayaa wuxuu yidhi عن شيخ شيخ دي حالكم هوي أرتو وراقيه وحي أي سميه وكفالتي وحي مقعيسي وحدنا وراقيه وإلا ما يستري شغلنا بلا بسوقه أي من يقول أليش أنا هو يدي ولي قلت تنجري هو يدي كلمة يتركم علي ساس وي هديت ترى نعم خلطها هاتو صحاهاتو ولي قلت كلمة دبوا معلي قلت أرنتا مركي أنكالها دي هوري nin baa jira darawal u ah hooyadii oo reer waddankeena asalkiisu Mauritania yahay reer waddankeena ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii daynay noqotay intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga ninkii baa hooyadii ku cabtay oo yiri ma garanaysa hooyo sida marka aan soo noqday hawshaadiina ay dhamaanaysaa meel fiican ay noo marayso ay hooyadii waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daasha ma oga buu yidhi hooyada inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyo oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay ma oga buu anigana caadadayda ma aha buu yidhi kelimad ay tiri inaan u jawaababa yani inaan hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaasay maraysaa igama suurtooda waxay tira unbaa soconay marka saas awgeed iga raaliaho aniga meeshaas ma geli karo maadaama hooyada ay tiri ninkii horaan rabnay khalaas hadalkeedaa socon adigu marka lacagtana qaado madiinana meeshaad iska joog sidii kale kuula dadaalaya oo khayr laakiin booskaas ma geli karo ka suurtoobi lahayd nin waqtigeennoo kale zamankan jooga weliba oo zaman tafatuh iyo zamanka furfurnaanshaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wada dooda iyo alaabtan ay wada socdaan markaa suurtoobi lahayd say ku dhici kartaa nin baan la hadalay nin baan keenay xataa si wanaagsan xataa uga dhaadhicin karaa ma doonayo waxay tiraan baa soconay marka walaalayaal xuquuqda waalidiinta waa arrin aad iyo aad u weyn ninkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala siiyo xabdigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabbihii ama hooyadii oo da-a oo u baahday ninkii ilaahay siiyow nicma ilaahay kuu soo xerogeliyey barwaaqa ilaahay kuu soo geliyey jannada albaabkeeda ilaahay ku dhigay adigu albaabkaas jannada ha iska xurin haddaba waad la socotaan waad maqasheen xadiidka nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu yidhi waa duco jibriil duceeyey
nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam aamiye maxaad aamiin u leedahay jibriil baa duceeyey ragima anf rajulin kabira cindahu waalidaahu falam yudkhilahu ljanna waxaa baaba'ay oo hoogay oo khasaaray nin aabbihii iyo hooyadii ku agweynaadeen ama midkood oysan iyagu sabab u noqon jannada inuu galo jannada gelin waayo yacni ixsaanka uu u ixsaanfalayo ee wanaagga uu la imanayo ayuu ku janno mudanaya hadduu taa garan waayana haddii jannadii heli maayo halaag buu ku dhacay marka waa nicmo weyn qofkii ilaahay laba waalid uu siiyo nicmo weyn waxaanad ogaataa barako oo dhan iyo khayr oo dhan iyo wanaag oo dhanna in ilaahay meeshaa kuu dhex dhigay qasooyinku saan idiin sheegay iska badan yihiin xajkii dhoweyd berigii dhoweyd xajkii hadda ahaa baa nin sheekho masri oo isku wadankan qatar ka wada baa hadlaya mawduuc wuxuu ku keenay garan maayo waxayba ahayd maalmihii xajka laakiin mawduuc cajaa'ib leh sheekada buu ka bilaabay dad badan buu la hadlay wuxuu yidhi masar meesha masar la yidhahba cimaaro waa taqaanaan bilding weyn ayaa gubtay bahal baa ku qarxay waa gubatay cimaaradii oo dhan waa gubatay bal waxaa ku nool buu yidhi ka mida dadka ku nool reer ka kooban qof dumara oo caruur leh oo weliba mid ilmo markaas naaska ay nuujinayso oo radiic iyo hooyadeed oo duqa ayaa la nool intaas ninkii guriga lahaa ma joogo waa ka maqan dabkii baa qabsaday suu u socday gurigii wuu gaaray gurigii markuu gaaray dabkii baa qabsaday waxay noqotay markaa in laga cararo inay ilmihii la fakato marka ilmaheedu waa badan yihiin marba mid bay daftaa waa la fakataa marba mid waxaa isku soo gaar isku qabsaday buu markii ugu dambeysay dabkii iyo qaraxii ugu weynaa iyo hooyadeed iyo ilmihii ay dhashay oo markaa radiic ahaa naaska nuugayay mid hadday qaada ka kalena qaraxi baa ku dhacay gaaskii wixii dhan baa isqabsaday marka waa arrin khatar ah waana mowqif xasaasa khatiira kana ilmahan waa beerkeedii kana waa hooyadeed keebay marka wuxuu yidhi sheekhu ilaahay wuxuu waafajiyey inay ilmihii iska dayso hooyadeed ay qaado hooyadeed ma socon karto hooyadeed bay daf tiri la booday markaasay meeshii ku tuurtay ay kula cararaysay gurigii kale sidaadii ay yeeshay baa qorigii isla qarxay qolkii oo dhan shaqadii oo dhan baa bug ma la soo geli kara marka iyadoo markaa indhaheeda shano ay arkayso ayaa meeshii isla dambasta noqotay ilmihii yaraayaa ku jira dadkii waa la farxay waa maashi waa loo laakiin iyadii ma farxi karto dee ilmaheedii oo naaska nuugayay bay ka soo tagtay laakiin maxay badbaadisay sheekha wuxuu noogu dhaartay sheekh muwaafi baa leeyahay wuxuu yidhi markii la yimid qoladii dabdamiska yimaadeen ayib meeshii wada dambas bay noqotay wixii bay marka soo inay kala qaadqaadaan oo bal wixii ilmihii fiiriyaan sheekha ilaahay magaciisu ku dhaartay wallaahi buu yidhi waxaa loo tegay ilmihii yaraa oo sidiisii u ooyaya oo wax tinna ayna ka guban meel waxba ka gaadhin guriga intiisii kale xataa sariirtii uu ku jiifay dambas bay noqotay ilaa ilmahaas yaa badbaadiyey allah rabb alcaalamiin nabi ibraahim qulnaa ya naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim soo mahay qaadirun calaa kulli shay waa dabaan waxba reebayn ilmaha yar ilahay baa badbaadiyey lakiin muxuu ku badbaadiyey sabab bay leedaho waa sababta hooyadeed doorashada ay dooratay inay hooyadeed ay maaragtay door bido ilmaha ka door bido ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku badbaadiyay ilmahaas xadiidkii wada socotaan waan idin sheegayaa waa xadiid muhima oo baabkaa ku saabsan 3 nin oo reer bani israa'iil oo safar ayaa waxay roob baa ku soo da-ay waxay is dhaheen buurtan hoosteeda ka gala roobkan meeshaasay galeen ama halkaasay u baryeenba aawow halkaasay u hoydeen buur hoosteeda gud ku yaal bay u hoydeen buurtii baa dhagax weyn ka soo dhacayoo afkii ka oday waa maqasheen xadiidkan wada malaynaya kulligii badan waa ku xidhmay khalaas 3 halkaasay ku jiraan jawaal iyo telefoonna lama haysto mobile
dadka lagula hadlo ama ambalas loogu yeerto ama askar loogu yeerto maxay sameeyeen itasaluu billah rabbi bay la hadlaan subxaana wa tacaala ninkii bilaabay saddexdooda waxay dhaheen horta war saddexdiinu waxa idin badbaadin kara maanta male ilaa aada ilaahay ku baridaan mid walba u camalkaad is leedahay waa camalkii ugu muhiimsanaa ee rabbigaa kaaga raalli noqday maanta ku bari ka un baa ku badbaadinaya nin baa hadalka bilaabay wuxuu yidhi allaahuma ilaahay kaana lii abawaani laba abbaan lahaa laba abba macnaha aabiyi hooyo waay abawaan haddii aad maqasho fi luga alcarabiya waa takliib weeyaano waxa weeyaan ab iyo hooyaa loo jeedaa abawaani kaana lii abawaani kabiiraan oo duqo da-ho gaboobay labaduba waxaana caadadayda ka mid ahayd buga dhaqankayga ka mid ahaa marka reer baadiya la iska ahaayo reer baadiye wey wuxuu yihi xoolaha markaan soo galbiyo habeenkii oon soo noqdo oo aan caanihii aan dhiso caanihii maalo iyaga cidna kama hormarin jirin hadda waa inaan caanihii u qaybiya ilmihii iyo xaaskii iyo wax soo ma iyagaan ugu horraysiin cid iyaga ka horrayso cabi jirtay caanaha ma jira wa kuntu laa aqbiqu qablahuma ahlan walaa maa marka maalin baa foofkii ila fogaaday buu yihi xoolaha waan soo daahay way seexdeen iyagoo seexday labadii waalid baan imid buu yihi caanihii waa usoo lisay qadaxii ama gaawihii aan kusoo lisay baan wadaa marka iyagiina waa hurdaan ilmihii waa soo jeedaan dadkii kaleo dhan waan soo jeedaa marka laba shayba waan diiday buu kow inaan caadadaydii aan gafo oo aabbaha iyo hooyaday cidna ka hormariyo taa ma yeeli karo inaan hurdada iyagoo hurdada ka kaciyo oo rakaala canihii caba iyadana waan diiday waa ii suurtageli xalkii muxuu noqday inaan habeenkaasoo dhan taagnaado qaa'iman habeenkii oo dhan waa taagan yahay ma fadhiya xataa waa dul taagan yahay iyagoo hurda gaawihii canaha ku jirayna wuu hayaa gacmuhu ku haya ilmihii waa ooyayaan oo canihii nasiibay leeyihiin warkooda ma dhagaysanayo wuxuu sugayaa markay soo kacaan goormay soo kaceen goortii fajarka ay ahayd salaadii subax markaasay soo kaceen markay soo kaceen buu caanahoodii siiyey wuxuu yidhi ilaahu arrintaas haddaan adiga dartaa ugu yeelay ufruj cana maa naxnu fiihi arrintan aan ku dhex dhacnay dhibaatadan ilaahu maanta naga feed dhagaxii biamrillaahi tacaala meeshii buu ka dhaqaaqay duleyl buu baneeyey laakiin kama bixi karaan labadii kale la sugaya warkay keenaan labadii kale la sugay kii labaad wuxuu yidhi isna arrin cajaa'ib buu sheegay gabadh baan jeclaa buu yidhi in adeertay oo aan raggu say u jecel yihiin haweenka sida ugu badan aan u jeclaa jacayl xun oo aan fiicnayn buu ahaayo waxaan doonayay buu yidhi inaan maaragtay faaxisho iyo zina ku sameeyo ayadana waa diiday waxay tihi xaaraan ma abadan lagama yaabo wuxuu yidhi mudda markii ay diiday zaman waxaa yimid kulul waa la abaar waa la gaajooday waa la rafaaday ka bacdi iyadoo miskiinahoo baahan gaajo awgeed ayay igu timid waxay tiri buu yidhi haddaan ogolahay bal waxaad rabto sameeyo isii wuxuuna siiyey markaasaan wuxuu yidhi siiyey 120 diinaar oo dahaba ayaan siiyey si ay iigu ogolaato arrintii horay ay iiga diiday markii ay ogolaatay oo dabadeed aan isla khaali noqonnay oo aadan dusheeda aan fadhiyo ayay waxay tiri buu yidhi ittaqi illaah ilaahay ka cabso walaa tafud alkhaatama ila bixaqihi khaatamkan ama furahan ha jabinin ila bixaqihi waa guur yani adoo nikaaxsanin arrintan ha samaynin ayay igu tiri ittaqi illaah marka tiibaa qalbiga iga taabatay markaasaan meeshii ka kacay farahan ka qaaday lacagtiina kama ceshanino waan u daayay ilaahay oo arrintaa haddaan adiga dartaa u sameeyey fafruj cana maa naxnu fiih dhagaxii marka ilaahay arrin u aqbalay bay ahayd horay u ogaa subxaana dhagaxii meeshii waa ka durkay laakiin kama bixi karaan kii saddexaad baa la sugaya kii saddexaadna arrin cajaa'ib loo sheego kale wuxuu yidhi ilaahayo waxaan soo karaystay dad ujaro oo ii shaqaale markay shaqadii ii dhammeeyeen nin walbaba shaqaayadii uu lahaa iyo mushaharkiisii baan siiyey nin baa iska diiday waxoogay waxiisa lugay war naga tag waxaan waxayiino isaga tag waa xanaaqi waa tagay xoolihiisii xoogaygiisii uu lahaa ajrigiisii shaqaayadiisii mushaharkiisii maalinta ayaan u kobciyey buu yidhi oon u midho maalay cidna kuma khasmin
وحيري أجر كيسي أنتي يرى العكت يرى ولا با إلهي بركيو قيل فربضن إيو اللؤ فربضن إيو أهل فربضن إيو أدوما اللي يسجل فربضن أنت صح ولا أيو نقض بريد أبوئين وحيري يا عبد الله أدي إلي أجري هبدا يسيو حوغي أن بري سلوين كعرب مركز سنكويل يقول ما ركتا قيل إيو اللؤ إيو أريقا إيو الرقيقة دوما إيو حاسونا هذا إسكال قابل مركز سوير يا عبد الله لا تستهزي بي هيقول جاجسي أنا أقول جاجسي عندي مسكين أنا حوغي اليوم مشاركي يسي حقيقي ما أنت أكون شغال جيسي وحنا بالملي ما يكون جيسي ما أنت أدر كيس هرن الحقت يريد كتكتب أكون شيء هذا إسكال قادني لي مركز سوري فاستاقه هو وذك حيستي أو فلم يترك شيء لك بتجنا يا مدرسنا إنكار قالوا من دعاء بس مؤرن حتى النف أورك أنا نف كان أرجع حتى بل أنت الدلال شيء يوحى أبغى وقاد بدل كلمة كل وضغطي فلم يترك شيء لم يكتب أنا أركي وضغطي إله يوم حدان أنا قدرت أوسمي أنا قدرت أوسمي محكوضة يعني ما لنت هدوه حقيقي العكت ولا هكرية شيء ما عد بقى يتصلح ميو كوه هي كان ما أوجي هيك وحن حولا إن العكت يصير ليش ما أوجا سكتك هدوه إلى حقيقي يصير شيء هذا مرة عتين لكن أديك درتها ومرتها ويا لي هذا صحيح نهاي إله نقفي نقفي فق ما شو أكبر صدق حدين إنه ويسكت هذا محاضرة برنامج كخصية كيهو سو ميد والبوا ميد عجائب وياب لكن كيهو لما دي سوالي مركب سيء فرصته نكاس يحلين حق أبوين أبولين للوالدين أوامع دي واجبكما قصبكما شرعكم قصبا وإحسانك لنا فريولي إحسانكم وفوق ما هو مطلوب منك فرضك أما هو وح وأسوء لهراده سميني إنه المهن قاعد جيسن عبادة قيلنا إنه هرمري وعناسي ما دام أبيه يسحدن واحدة باتاك مسوء قادة ولكن حقه دوره أرنت واجبك إساقات لغي أبيه هو يدي عدكور ريس إنه نعاناها سينين أيودي ذي مجبيو مدك له موسك سيحظ أمرك سوكع بري سوكع عن السيها هبين يقول بوتان تاسع مرك إلهي سبحانه وتعالى رالي كالنقضي سببنا النقطي تفريج إلهي الوقف مرك وحل نقدوني أنا كنت ذلك الوالدين حقهما كبير إنا نسك إلى لأنه حقه هذا يكون كنت ذلك لبدا والد شيء يجعله إنا ننو وهر مرة هذه يكون وهذا الصعوتان حديث النبي عليه السلام وكنت المؤمنين تابعية وأن تابعية أن صحابي ما صلى صعوتان مدن وحاو خير بدن أصحاب النبي كبعد الجيل ككحي الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني تابعين تقولنا دي اللي سوقيو كل ودت في عمبها كجريه هل لنا صحابة أكتي سمي من كران صحابة فضل إلهي يا سيدي فضل إلهي وقال لي ما دام النبي لك من عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك النبي يقول تابعي وصحابي هين أيو أصحابتي ولي رجل دي أوه وينا ولي سيدنا عمر بن الخطاب وأدر دارموه ننكا هذا لك لنتم دعاك هذا لبنو كو دعي ودن بالله في له كويتي ننكا وحال إلى ولي أويس القرن والرير يمن رير كاس القرن أبو كسيه هل كاس جوجا هو يوليه وبارئيه له أم بها هو بها بر بارب وياه ويدس بر ننك هذا درت دعاك دار ويدم بالله إلهي يدم بالله في ويديده دم بالله إلهي إيه بريء كله هذا درت سيدنا عمر ولي أمير المؤمنين مركا أيام مركي مادين كوحيه أمدادي جيشك مسلمين تا لما لقدر بجري مال كستاني كي مادان أيوه ويدين جري والنين ويس ليلا يقان إلى أهلي نية قانو أنا نكاس مركي دم بوابي ويس باب ويس الكام باب هذا هبل البتها وهرير هبل متها وهبل قبيل كارير كم كسيتها ويس بلويلها هو يملدها برس ملها إلهي مكا فيو إن يرو درهم وكلام كاجهرها هذا هو ننكي النبي ونقول دردامي بعتها والنية دم بالله في الله يودي أو حتى إلهي وعمر دم بالله
اللهم اغفر لعمر بن الخطاب haddaba wuxuu xageed u socotaa dhinaca kuufaan u socda aan kuugu qoro halkaas si lagu ogaado maqaamkaaga maya hayelin buli akuunu fii qabraa'i naas dadka caamata naas iyo fuqaradoodan ku jiraya waxba yaana gaar ka noqonin iska kayda sidii buu uga tegay meeshii sanadkii dambe markii la soo xajiyey ayuu wareystay dadkii meeshiisa ka yimid war ninkaa ayaa arkay annaga aragnay wuxuu ahaa nin waxaan aragnay bay dheheen ninkaas aweys wey oo xaaladiisa yahay waa kaana radha almataac yani nin miskiin ahoo tabar daran oo taag daran waxba aan haysanin buu ahaa markaasuu sheegay sayidina cumar war ninkaa iska ilaaliya ninkaa waa ninka nebigu uu nagula dardaarmay haddaan aragno inaan nidhaahno nooda ilaahay dembi dhaaf noo weydii ee ninkii arkow sidaa yii kuwii baa noqday war balka amiirulmuminiin baaba yidhi ninkan nin khataro weeye bal ilaahay noo bari markii dadku ay ogaadeen waa isaga tegey ma doonayo meel lagu ogyahay inuu joogo nin saalix buu ahaa waxaa caadadiisa ka mid ahayd baa layidhi salaada subax markuu tukado meeshiisa kama kaci jirin ilaa duhurka haddana duhurka markuu tukado meeshiisa kama kaci jirin ilaa casarka hadda casarka hadduu tukado ilaa maqhribku haddana fadhihi jirin maqhribka hadduu tukado ilaa cishaha fadhihi jirin cishaha markuu tukado meeshaa unbuu fadhiya hadda ilaahay xusaya markaasuu kacaya gurigiisa gaaraya isla markii haddana meeshuu kusoo noqonaya saasay caadadiisa ahayd baa layidhi nin saalix u ahaa oo ilaahay baari u ah hooyadiisna baari u ah laakiin meesha la tilmaamay maxay ahayd huwa biha baarun ninkii doonaya marka inuu liibaano aabihii hooyadii baari ha noqdo wiilashan yaryarka oo dhallinyarada khaasatan wadamadan ku koray haddii hadda isku afba ma nihin hadday afkayga garanayaan ya isku af ma nihin hadda inaan ingiriiska baran doonaan u malaynaya si kale male ya haddii aan is afgaranayno waxaad yeelaysaa dadkan oo aada u timaadeen oo gaalada ah dadkan markii horeba aniga idiin sheegay xaqii ilaahay mayna baran rabbigoodna umayna mahadnaqin sidaas awgeed aabbihii hooye uma mahadnaqaya birulwaalideyn agtooda ma yaallo birulwaalideyn ixsaan caama waa iska leeyihiin oo iyaga dhexdooda ay isu ixsaanaan falaan beryo horaan ka fiirsaday oon anigu waxaan waaye baan nin weyn oo da-ah oo nin dhalinyaro ah oo uu dhalay gacanta uu hayo waddada u wada waawa kadalik islaan gabowday yani gabadh yar oo dhalinyaro ah oo islaan gabowday gacanta hayso oo wadda oo gaaladanana waa la waayay anu ma arkay ma aqaana aragteen marka midba igu yidhi marmar baad arkaysaa dadkan aada u kala yaqaan wuxuu marmar baad arkaysaa markaad aragtana ha u qaadanin inuu ilmihiisa maaha meesha dadka waaweyn buu ka shaqeeyaa waxaa la amray buu yidhi inuu soo warwareejiyo laakiin ma dhici karta buu yidhi nin dhalinyaro oo aabihii gacanta hayo da-a ma arkaysid buu yidhi ama hooyadii oo da-a gacanta hayo ma arkaysid uma suubadaan umana qalqal yar dhalinyaro taxi maraykan beriyan jooga maraykan taxilow soomaaliya wuxuu yidhi islaam baa taxiga soo fuushay da-ahoo gabowday dhakhtar igee bay tiri meel isbitaal aada u fog waan geyn markay ka degtay waxay u tiri buu yidhi bahalkan xisaabta caddaadka tiraya ha joojinin isug ilaa aan kaaga soo noqno anaa iska bixinaya wax badan iga maqnayn ninkeedoo da-ahoo gabowbo dhakhtar ku jiray soo booqanaysay markay soo noqotay haddana waa soo kaxay gurigeedan kusoo celiyay lacag badan oo 100 iyo ziyaado ayaa kusoo baxday markaasay lacag karoo fara badanna igu dartay markaasaan inigu yidhi maxaa kugu kalifay arrintan la ii sheegi kartaa yani taxiga waa iskaga sii dayn kar taxi kalaad qaadan kartay maxaad lacagta isugu badis markaasay iyadoo aad u tiiraanyeysan bay sheeke in sheegtay waxay tiri anigu horta ninkaan soo booqanaya ninkaygu ahaa da- meeshuu ku jiraa dhakhtarka wiil iyo gabadh baan leenahay wiilka iyo gabadhaas sanadkii waxay noo iman jireen marka oo christmaska meel ayay noo iman jireen tuulooyin agteen ay degan yihiin ma aragno markaasay noo yimaadaan marka maalintii dhaweyd oo hadda ugu dambeysay markii ugu dambeysay way ila soo hadleen mid walba gaar buu ila soo hadlay hooy waa imanaynaa laakiin lacagta adaa bixinay waa ku imanaynaa imaatinkaas waa kaa iibsanaynaa lacagta kusoo raacayna tareenkaama waxaa adaa bixinay raalli baan ka habata anaaba abaal ku qaba libi inay ii yimaadaan oo wax kasta bixiyo maca dalika iimaysan imanin markaasaan go-aan ku gaaray inaan qalbigayga
ka saara inay jiraanba kuwaas. sidaas awgeed dhalinyaro kasta oon arko hadda waxaan jeclahay inaan ilmo ka dhigto oon isaga ilmo ka dhigto oo waxaan haya aan siiyo, tanna qaado ood lahayd tanna ku darso iska tag. saasay ku tiri. marka waxaan ka wadaa ha ku dayanina dadkan, maadaama xaqii ugu weynaa oo xaqullah aysan haynin, xaqulwaalideynna ma hayn karaan, uma waa samaysnaba. saas awgeed waalid waxaan aada maqlaysaan ama iskoolka laidin sheegayo in waalidka lala doodo ama maaragtay lala hadlo ama hayelina idinka daa'iman ixtiraam. labada waalid ixtiraam baa laidinka rabaa, inaad kor u fiirin, haddii goor madaxa inaad ka dhunkataan, gacanta ka dhunkataan, subaxii markaad sii baxaysaan iyo markaad shaqada ka soo noqotaan iskuulka. koow waxaad ka bilowdaa adoon meel tagin meel kale geyn, aabbaha iyo hooyada madaxa iyo gacanta ka dhunko, waa ku liibaanaysa, ilahay baa kugu jeclaanay subxaana wa tacaala. kelimad xunna weligaa ha ku odhan, kelimad xun weligaa ha ku odhan. ay shay ku dhahanna waa yahay, waa arrin runtii marka lagu hadlayo afka ka sahla, laakiin dhaqankeedu iska dhib badan yahay ilaa man yasara allahu lahu. khulaasat lkalaam, warkii haddaan soo koobo, ilaahay jala jalaaluhu waxa ugu weyn in loogu dhowaado waa in isaga la caabudo subxaanahu waxdahu laa shariika lahu, isaga loo mahadnaqo. waxa ku xiga xaqulwaalideyn baa ku xiga. su-aasha ugu dambaysa marka aan kusoo khatimayno, nin baa su-aal weydiin kara, odhan kara anigu hadda yani aabbiyo hooye waa iga tageen, waa dhinteen, ma joogaan, marka maxaan samayn karaa aabbahay hooyaday oo aan jeclahay inaan u ixsaan falo? wax ixsaan ah, wax baarinimo ah ma igu hadhay mar hadday dhintaan? su-aasha iyadaa waa laga jawaabay, nabigaana ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam. wa min xusni alxadi, su-aashaasna horay u dhacdo nabigaa la weydiiyey, nin baa weydiiyey aabbaha iyo hooyadii waa dhinteen, wax baarinimo hadhay oo aan u baari fali karaa oon u ixsaan fali karaa ma jiraan? haabu horta hadday nool yihiin dee waa ugu ixsaan falaysa. booska la gaadhsiiyey waxaa ka mid ahaa in nin nabiga u yimid calayh salaatu wasalaam uu yihi waxaan rabaa inaan jihaadka ku raaco, jihaadka inaan ku raaco, jihaadka shay ugu weyn. hooye ma leedahay? hooyada ma nooshahay? waa laba waalid ma leedahay? ha fa fiihima fajaahid, orod iyaga maarata usoo jeeda. marka khaslada ugu dambayso ah labadaada waalid haddii ay dhinteen oo adduunka aysan joogin, ma loo ixsaan fali karaa? ha waa loo ixsaan fali karaa, waa loo baari fali karaa. nebigu uu noo sheegay calayh salatu slam, biriga aad u samaynaysa aabbaha iyo hooyada oo tegay, kow waa in aada u ducaysaa, birinimaday ka mid tahay. walidaalika dad wanaagsan qaarkood dhaqankooda waxaa ka mid ahaa, wuxuu yihi salaad kastoon ka baxo rabbi ikfir lii waliwaalidaya kama tago, labadaada waalid makfiro ilaahay u weydiiy. kow. arrinta labaad inaad u ducayso biraxma, istikfaar, dambi dhaaf, raxmad, ilah u naxariisa aad tiraahda iyo goor. arrinta saddexaad inaad sadaqa u baxsato, sadaqa bixi u niyo iyaga, way gaadhaysaa, ilahay baa gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala. sadaqadaas nooc kastay noqon kartaa, ma aha shardi in oo maaragtay aad xoolo qasho oo dabadeed xoolaha marka iska dhaqanno waxaa iska jiray berigii dambe ay soomaalida meela ka keeneen ma aqaano, xus iyo wax la yidhaha abahay baan xusaya, hooyadii baan xusaya oo kada oo ayaa iska jiray. asalkeedu waa saxiix oo inaad intaad cunto samayso, xoolaha intaad gowracdo, masaakiinta ugu yeedho, ay dhargaan oo magaranaysaa ay duceeyaan oo aabbaha ama hooyada aad tawaabka u niyeysato weeye aslul mas'ala, waana sax, wax ay ku jirtaana male. laakiin in dhaqan lala eegto oo meeshii dad masaakiina la siin lahaa, dad iska aragtay dheragsan meelaha looga yeelo oo xaflad oo kale laga dhigo, oo taas ayaan sharcigu uusan ogolayn, meelna aan ku qutumin. laakiin inaad adiga aadan weliba xataa wakti u samayn, sanad kasta markuu dhintay maxaa qasab ka dhigay ay waqti oo aad wax heshid, sadaqa la bax. sadaqadana daa'iman tan daa'imkee mutawaasilka fiican, sadaqa jaariya, masjid la dhisayo, ceel la qodayo, biyaheeda la cabayo, xoolo nool aad bay u fiican yihiin haddaad intaad iibiso dad masaakiina oo baadiyihii joogoo kale aad maaragtay ku sadaqaysato, inta ay nool yihiin ama wax daaqayaan oo wax sii dhalaan, ajir aabbaha iyo hooyada u socdo weeye fii qabrihima, oo nuur u dareerayo, waa wax weyn weyn baa lagu helaya. kow. waxaa kale oo ka mid ah biri lwaalideyn bacda wafaatihima, markay dhintaan in hadday dardaaran ka tageen, dardaarankoodii aada meel mariso. dardaaran bay ka tageen, dardaarankii ay ka tageen fuli,
arrinta shanaad waxaa weeye saaxiib bay lahaayeen waxaan soo iloobi silatu arraxim silatu raxim raximkii ay isku kaa xiriiriyeen iyagu xag hooye ama xag aabbo inaad xiriiriso bir lwaalideynta bacda wafaatihima dhimashadooda kadib bay ka mid tahay in raximka aada u ixsaan fasho oo silaturaxim dee waad garanaysaa waa wax aan ma garanaysaa yani wax koobi kara ajirkiisa iyo khayrkiisa usan jirin oo xataa nebigu ninkii doonayay in cumrigiisa loo kordhiyo o loo barakeeyo risqigiisana ilahay waasic uga dhigo raximkiisa hasile ha xidhiiriyo marka raximku wax weyn weeya maxaad u xidhiirinaysaa labadaadaa waalid awgood leanna raxim kale maydaan isu timaadeen iyagaa isu kin keenay arrinta ugu dambaysa waa sadiiqu saaxiibka la aha aabbahabaa nin saaxiib ah lahaa ama hooyadaada qof saaxiibada lahayd had iyo goor isla socon jira o isjeclaaya iyagana inaad u baarinimo fasho meeshii aada aabbaha iyo hooyada u joogi lahayd iyagana u joogto oo aada xusuusatid xataa haddii ay kaa fog yihiin ama waddankii ay jiraan had iyo goor aad ku darsato dadka aada ma garanaysaa marmarka qaarkii wax u dirayso ama aada ka farxinayso inay kow ka galaan lianna aabbaha iyo hooyadaa bay saaxiibkooda ahaayeen lisuxbatihimaa baa ilaalinaysaa birigooda ayay ka mid yihiin waakhiiran nadcu allaha tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa waalidiinteenna inuu dambi dhaaf galabtaa insha allahu galbaha ilaahay ka mida wadamadeennina habeen ah ee barakaysan min cindihi in ilaahay subxaana watacaala fadhigaan isugu nimid awgeed ilaahay subxaana watacaala aabbayaasheeni hooyooyinkeen naar ka koriyo oo jannada uu geeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inteena meesha joogta intana dhegaysanaysa iyo inta hadalkeena la socota kii aabbihii iyo hooyadii ay nool yihiin ilaahay inuu baarinimada waafajiyo aabbihii iyo hooyadii kii ay tageenna in ilaahay subxaanahu watacaala uu naxariisto khayr uu siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa caruurtana ilaahay baarli ha nooga dhigo saalixiin allah ha nooga dhigo ilaahay ha noo hanuuniyo ina allaha calaa kulli shayin qadiir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.